meel magaalada Izmir oo ay ku nool yihiin Soomaali aad u fara badan oo markaas halkaas u jooga in ay ka baxaan oo ay u gudbaan dhankaas iyo dalka Greega ayaa waxa la sheegay in culays aad u weyn ay dawladda dalka Turkiga ay ku soo rogtay kaasoo ah in ay guud ahaanba markaasi u qabteen muddo yar oo kooban marka ujeedada ay ugu qabteen ilaa hadda dawladdu ma shaacin loo xalay tola bilowday ayaa waxa la sheegay in Soomaali aad u fara badan lagu qabtay arinta kale la siyaab kale waxa weeye in loo diiday inay markaasi kireystaan ama mulkiilayaasha hoteelka looga digay in wax ajaanib ah laga kireeyo hoteelada ku yaala magaalada Izmir haddaba arintan si weyn ay bulshada halkaas ku nool ay u saameysay oo markaasi dhowr jeer oo aan la xiriiray dhalinyaro kala duwan ay waxay sheegeen in xaaladii ugu darnayd ee Izmir inta ay ka warqabaan in ay arimahani ay ka tahay dadkii ugu faraha badnaa ayaa weegan dhexdiisa soo kala weegaga horeba la tarxilay oo dalkii Soomaaliya lagu celiyay waxaa jira in dhalinyaro markaas Soomaaliya ay u safrayso magaalada Izmir oo doonayaan in ay halkaas calafkooda ku qaadaan haddaba kuwaas si ay markaasi arintan aysan ugu dhicin maadaama dhalinyarada Soomaaliya intooda ugu badan qayb badan ay bila sharciyiin in arintan hadii ay lacag ku dhacdo ay saameyn ku yeelan karayso maadaama qof wadankii ka soo baxay arimo badan ay jiraan in ay ka digtoonaadaan oo markaasi magaalada Izmir sidii ay markaasi uga digtoonaan lahayn ay ka digtoonaadaan kuwa ku nool magaalada Izmirna warkan si fiican bay uga dharagsan iyagu waa wada wargal weey oo xogtoodu waa 100% waa wax xubanti ah waa dad inta badan xogaha si ay ku helaan hela haddana kuwa u safray sidoo kale kuwa joogaba daawaday bal muuqaalkana si shargare si markaasi dhalinyaro laga yaabo inay u safrayaan magaalada Izmir si ay uga digtoonaadaan oo ay xogtan u fahmaan in magaalada Izmir habeen dambe wixii ka bilowda in hoteeladana aan la kireysanin guryaha laga yaabo in la isugu soo galo dawladuna ay wado raaf ka dhan ah ajaanibta ku sugan magaalada Izmir muuqaalkan saaxiib bal si shargare wana mahadsantiin